aan eego dhanka iyo magaalada Jigjiga baraha bulshada ay ku xiriirto maanta waxa qabsaday dhacdo xiiso badan oo ah wiil magaaladaasi Jigjiga kaga dhex shaqeysta mooto bajaaj kaasi oo bajaajkiisa ka dhaxelay lacag aad u tiro badan oo qiimahan dollarka marka la fiiriyo aad u badan taa oo ay ka tagtay qof dumar ah oo meel dhakhtar ah geeyay dhacdo la yaab leh ayay ku noqotay dad badan oo reer Jigjiga ah wiilkaasi oo lagu magacaabo Guuleed Ibrahim Ismaaciil ayaa lacagtii ku raadiyay gabadhii lacagtaasi lahayd oo malaha ka wasabartay oo istiri calafku ma aadan lahayn goordhaweyd ayaan Guuleed qadka telefoonka magaalada Jigjiga ku wareystay waxaan ugu horeyntii weydiiyay tirada lacagtaasi lacagta Itoobiya waa 300 kun oo dollar ahaan hadaad loo xisaabiyo 6 kun oo dollar bay noqonaysaa marka goormee baad ogaatay in bajaajkaaga lacag looga dhex tagay markii ay iga dhaadhaceen ka bacdi una ogaayay inaan arkaano meel baarkin istaagay iyaan arkay haye kadib markaan arkay markiiba lacagtii afkii baan ka xidhay way ballanqaastay dabooyo furnayd lacagtii afka intaan ka xidhay garab dhigay iyaan dib ugu celiyay meesha markaad heshay oo aad aragtay lacag dhex taala bajaajkaagii oo furan dee qof bini aadan aad tahay nin danleyna waa tahay oo bajaaj ku shaqaysa marka xogaa damac ma kaa galay may wallaahi wax damaca xitaa boqor yani daga dhex qaaday ismoon wax damac igama gelin waan gartay maxaa ka hor istaagay markii inuu damac kaa galo may wallaahi markii waan ka naxay anigii oo shaqaysanayo lacag kale haysto lacag kale inaan ka dhigay oo kadib bacdi aan u geeyay marka qofkii lahaa seebaad ku ogaatay dee markii aan tagay bacdi meeshii markii aan tagay meeshii ay igaga degtay dhakhtar bay igaga degtay dhakhtarkii markii aan tagay iyo dhakhtarkii aan weydiiyay ku yiri qof alaab ka tagay meelaan maad aragteen haye kabacdi dadkii baa wada farxay oo wada qayliyay oo yiri wallahi ma sha Allah maad u keentaa islaantu way xanuunsan gaadhay waxba la yiri hooyadu xagee bay joogto markaa qof iyada way maqnay iska meeshii ka tagtay iska qanacday qof baa lambarka ka reebay oo qaraacay haye baa u yeeray ku lacagtii baa lagu helay qaali meesha sidee isku hesheen markii dambe meeshii aan markii hore geeyay inay ugu timid daaro taagan aan bacdi lacagta iyadii baan ku wareejiyay maxay sameysay markaad lacagta ku wareejisay wallahi aad u farxday aad way ducaysay aad ugu ducaysay aad u farxday kaasi waxa uu ahaa Guuleed Ibrahim Ismaaciil oo ah nin ku shaqeysta mootada bajaajka loo yaqaan magaalada Jigjiga oo lacag 6,000 oo dollar ah ka dhaxelay bajaajtiisa kadibna ku raadiyay gabadhii lacagta lahayd oo san aqoon waa hagaag dhageystayaal badan ayaa ra'yigooda soo dhiibanaya waxa kamid ah Cabdullaahi Maxamed Faarax waxa uu joogaa isla Jigjiga waxa uu dhacdadii maanta ka dhacday magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida waxay ahayd dhacdo yaab leh buu yiri dhalinyarada Soomaalida ay ugu yeerto magafayaasha ee bajaajka yaryar ka dhex shaqeysta magaalada ayaa lacag uu helay keenaya leysma lahayn laakiin buu yiri wiilkan hooyada Soomaalida lacagta la dadayaya waa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed waa hagaag Sayid Cumarna waxa uu leeyahay wiilka reer Jigjiga ee dhowrka kun ee dollar ee ku raadinaya haweeney uusan aqoon balse bajaajkiisa uga dhex tagtay lacagtaasi runtii waan boogaadinayaa wiilkaasi waayo waa wiil alla ka cabsi iyo amaano ay isku darsaday buu yiri waa hagaagan aad ayay u maasan yihiin dhageystayaashaasi